kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Halkani waa Curasho. Waxaad ku soo dhawaataan qisooyinka labada hees ee uu qaaday fanaanka weyn ee Maxamed Mooge Liibaan ee kala ah Haddii Jacayl Sir Laga Dhigo Saldhig Lama Gaadhe iyo Dharaartii Aan Ku Caashaqay. waxaa wada socday ninka bilada cuudka Soomaalidu ay siisay Allah u naxariistay Axmed Ismaaciil Xudeydi, Maxamed Aadan Dacar, Cabdi Aadan Xaad oo Cabdiqays loo yaqaano, iyo Maxamed Mooge Liibaan. sidoo kale waxaa la socday Axmed Salebaan Bide. sanadu waa 1975 iyaga oo lugeynaya goor barqa ah meel ka mid ah degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo da'ay roob, gaar ahaan roobka loo yaqaano xagaayaha oo caadadiisu ay tahay inuusan wax badan soconin. kooxdan wada socotay socodkoodii inay hakiyaan ayay go'aansadeen oo roobka meel ay ka galaan ay raadiyaan. guri dabaq ah oo aan ka fogeyn ayayna hoos galeen. wax yar un kadib waxaa agtooda soo istaagay baabuur midabkiisu cirka u egyahay oo nuuca raaxada ah. kadibna waxaa ka soo degay laba gabdhood oo markii ay ishu qabatay qoladii roobka meesha kaga jirtay ay dhammaan qurux ku tilmaameen. Maxamed Aadan Dacar ayaa Axmed Salebaan Bide isaga oo caraysiinaya ama xujeynaya waxa uu ku yiri, Axmedow waa kaase labadaas gabdhood ee baabuurka ka soo degay ee xaggeena u soo socda, car hees ka samee, waliba tan soo horeysa. Axmed Salebaan Bide ayaa ereyada heesta bilaabay. waxa uuna yiri, dhayal looma heesee dharaartii aan ku caashaqay. Xudeydi ayaa isna ballan qaaday inuu laxanka heesta saarayo. Maxamed Mooge Liibaan ayaa isna yiri, anaa ku luuqeynaya. Cabdiqaysna sacabka ayuu u tumay. markii ay gurigay tageen ayaa Cabdiqays oo ay saaxiibo isku sir ah ahaayeen Axmed Salebaan Bide waxa uu maqlay gabar ka mid ah labadii gabdhood oo iyadu biyo u keenaysay ragga la martigeliyay, iyada oo ku luuqeynaysa hees uu sameeyay Maxamed Cali Kaari Allah u naxariistay oo ay erayadeeda ka mid ahaayeen, adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin. dareen ayuuna qaatay, wuxuuna isiri halkaas waxbaa ku jira. la isbaray oo la isxaal wareysay, waxayna gabadhii midii horeysay oo sidoo kalena ahayd tii baabuurka ka soo hordogtay ee la isku caraadinayay in hees loo sameeyo ay noqotay gabar ay Axmed Salebaan Bide Hargeysa isku barteen markii uu xabsiga ka soo baxay oo iyadu jeclayd balse aan Axmed waxba u sheegan. Axmed Salebaan Bide oo aad uga xun xaaladda ay gabadhaasi ku kulmeen oo dabcan sidiisa oo kale Muqdisho safar ku ahayd, sidoo kalena ku canaananaya in ay la aamustay jacayl
ay qabtay oo uurkeeda ku jiray ayaa alifay heesta haddii jacayl sir laga dhigo saldhig lama gaaree soo soco oo wax ii sheeg. sidoo kale Axmed waxa uu ku muujiyay heestan damqashada qof aad xaalad adag ku kulanteen adiga oo aan hayn ahaan waxba dhaamin. waxa uuna yiri saxayadii goon qabi sir barax kulay tahay suuriya ruux ku kulantay suurina nakaba filin salaad la jeceshahay aduu sidin macaati soma gaani intood saarto dhawaada inaad soo tayaaqi soma gaani intaad saarto dhawaada inaad soo tayaaqi awsalaan kulay tahay ay la seeganahay kalo inagoo soo wadaajeel وسلام كليتهاي إسرائيل جمعي كلو نجوس وداكي صوص وحيشي أديت عايز لغادي سريق لغا مغادي صوص وحيشي أديت عايز